nimanka culimada ah ihaana loo geystay culus ciddii ka dambaysa in mucjiso ilaahay degdega ku rido oo ka muujiyo maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo xafiiskiisa saaka qaar kamid ah warbaahinta ugu waramayay ayaa ka hadlay culimo ay kamid yihiin Sheekh Maxamed Cali Biixi iyo Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo xilli ay ku jireen nabadeynta iyo heshiisiinta mid kamid ah beelaha dega gobolka Sanaaga amar lagaga soo saaray magaalada Ceyrgaabo iyadoo la sheegay in looga yeedhayo caasimadda Hargeysa waxaana uu maayirku intaasi raaciyay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo ciddii amarkaasi ka yimi isagoo ka hadlaya maayirku arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadaladiisii kamid ahaa magaalada waxaa joogay laba sheekh oo ahlu karama oo lagu ogyahay ama loo yaqaano dadka ilaahay ku dhow ama warisadii nebiga xambaarsan waa maxamed sheekh ismaaciil iyo maxamed cali biixi waxay u joogeen arrin nabadeed oo ay had iyo jeer dhaqan u leeyihiin inay ka shaqeeyaan waxa wanaagsan dad khilaafaad ka dhaxeeyo oo ishaya inay heshiisiiyaan iyagoo ku dhex jira oo hawshii wada ayaa amar la siiyey oo la yidhi magaalada waad ka baxaysaa maxamed sheekh ismaaciil si degdega amarkii wuu qaatay sheekhii kalena wuu raacay sidii bay ku baxeen Hargeysay tageen waxay baadi dooneen meeshii amarku kaga yimi waxaa culimadii lagu yidhi anaga beri baa naga tihiin waxaa war kama hayno arrintiisaasay u dhacday iminkana waxaa magaalada ka aloosan xiisad ama huuhaa ama hadal fara badan oo la leeyahay ciddaasaa ka dambaysa ciddaasaa ka dambaysa waxaan codsanayaa arrintaa in la baadho sifa sharciga lagu baadho hay-adaha sharcigu baadhaan ciddii waxaa samaysay sharciga la hor keeno waxaan kaloo shirka saxaafadeed u qabtay nimanka culimada ah ee ahlu karamka ah ee koofiyadii islaamka ah ihaana loo geystay culus ciddii ka dambaysa in mucjiso ilaahay degdega ku rido oo ka muujiyo oo sariica ayaan ilaahay u weydiinayaa waxaana leeyahay culimada islaamka oo dhan ama kuwa Somaliland inay ilaahay weydiiyaan in calaamad degdega alla ka muujiyo wixii waxaa galay Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV